bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal u diyaar garooba daawashada wararkii ugu dambeeyay ee siyaasadda Soomaaliya qodobada ugu waaweyn ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaare Roble oo lagu eedeeyay boobka kursi xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka dacwo ka dhan ah Roble oo loo gudbiyay beesha caalamka xilli isaga uu horay u diiday in la boobo doorashada maxay tahay danta ku qasabtay in Roble uu kursi boobo warkeena ayaan idinku hayaa qaraxyo qasaare geystay oo ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso qasaaraha ay geysteen iyo warar ku saabsan ayaan idin hayaa waxaad kale oo warkeena ku daawan doontaan ra'iisul wasaare Roble oo isbitaalka ku booqday afayeenka xukuumadda Soomaaliya oo shalay lagu dhaawacay qarax lagu weeraray gaarigiisa dawladda Imaaraadka Carabtana waxa lagu eedeeyay inay wax ka ogeed qaraxii shalay lagu dhaawacay afayeenka qadarna waa ay cambaaraysay wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa waa maalin isniin ah 17 bisha Janaayo sanadka 2022 fadlan daawade aan ka qayb qaadano dhismaha dalkeena anagoo ka fogaanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku maasantihiin inaad taasi nala fahantaane nala faafiya wararkan idinku ku sheer gareynaya baraha bulshada markale kulanti wanaagsan sida hordhaca warkeena aad ku maqasheen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu eedeynayaa inuu boob ku hayo kursi xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka xilli isaga uu horay uga digay in la boobo doorashada suldaanka beesha Habar Cafaan oo kamid ah beelaha dir waqooyi suldaan Abiib Maxamuud oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay inuu boobayo kursiga hob 215 oo kamid ah kuraasta beeshiisa ee golaha shacabka suldaanka ayaa sheegay in laga been abuurtay oo magaciisa lagu saxiixay kursigaasi markii dambana ay ogaadeen in ra'iisul wasaare Roble uu yahay go'aamiyaha kursigooda sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in ilaa dawladii lagu soo dhisay Carta uu saxiixa beesha soo ahaa balse hadda go'aan laga gaaray mid kamid ah kuraasta baarlamaanka ee beeshiisa iyadoo aan waxba laga weydiinin beeshanu 3 kursi ayay leedahay mid kamid ah waa la musuqmaasuqay muddo dheer ayaan ka daba wareegaynay kursigaasi laakiin kadib waxa naloo sheegay in liiska cuqaasha uu soo qoray ra'iisul wasaare Roble waayabe masuldaankii beesha ayuu yiri suldaan Abiib Maxamuud sidoo kale suldaanka ayaa sheegay in guddiga doorashada markii ay wax ka weydiiyeen arintan loo sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu u soo gudbiyay liis uu ku jiro magaciisa suldaan Abiib wuxuuna arintaasi ku tilmaamay dulmi laga galayo beeshiisa shalay ra'iisul wasaaruhu wuxuu lahaa doorashaha boob maya isaga ayaa boobkii nagu bilaabay kursigeena si cad ayuu u yiri aniga qaatay mas'uuliyiintii iyo dadkii u tagay ayuu sidaasi ku soo yiri ayuu hadalkiisa si raaciyay suldaan Abiib suldaanka ayaa cadeeyay in kursiga hob 215 uu ka boobay ra'iisul wasaare Roble isagoo uga dacwooday dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka dulmi boob iyo dhac ayaa naloo geystay mana yeelayno kursigaasi Roble ma leh cid xog ku qaadan kartana ma jirto ayuu yiri suldaan Abiib ayaa sidoo kale sheegay in ergada lagu soo qoray kursigaasi ay ku jiraan xubno Itoobiyaan ah ergo xabashi ah ayaa lagu qoray iyo habiyo suuqa laga soo aruuriyay ma waxaas baan yeeli karnaa ninka loo qoray kursiga ma garanayno cidda uu yahay ayuu hadalkiisa ku sii daray ugu dambeyn suldaanka ayaa sheegay in boobkaasi aysan ogolaan doonin oo meel kasta ay ka dacweyn doonaan ra'iisul wasaaraha isagoo Roble ugu baaqay in masiirka kursigooda hob 215 uu u soo celiyo murashaxiinta kursigaasi hob 215 waxa kamid ah Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo 4 sano la soo dhaafay ka tirsanaa golaha aqalka sare ee Soomaaliya suldaan Abiib ma uusan xusin magaca shakhsiga uu sheegayo in ra'iisul wasaaruhu uu u dhacayo kursigooda waa tahay baahinta wararkeena ayaan ku guda jirnaa si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka subscribe sar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno uu ku soo gaaro faahfaahino ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax bambaano oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Warta Nabadda inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday ugu yaraan 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo loo adeegsaday bamba gacmeed askar ka tirsan booliiska Soomaaliya oo bar control kule isgooska xarar yaale ee degmada Warta Nabadda ayaa la sheegay in lagu weeraray qaraxaasi
qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidanka lagu weeraray qaraxyadan loo adeegsaday bambada nooca gacanta laga tuuro waxaana ciidamadu ay jiha kasta u fureen rasaas taasoo ilaa hadda aan xog rasmi ah laga helin haddii uu jiro khasaare ka dhashay ciidamada ammaanka ayaa xaafadaha ka agdhow isgoyska uu weerarka ka dhacay ee Xarar Yaale waxay ka bilaabeen howlgallo ay ku baacsanayaan kooxdii fulisay weerarkaasi balse natiijo kama soo bixin howlgalkooda dhinaca kale magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga gobolka Bari waxaa ka dhacay bam nuuca gacanta laga tuuro oo ciidamada amniga lagu weeraray qaraxaasi waxaa la sheegay in hal qof ku dhaawacmay iyadoo dhaawiciisa loo qaaday isbitaal ku yaala magaaladaasi waatahay wali baahinta wararkeena ayaan ku guda jirnaaye ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa isbitaalka ku booqday afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow oo ku dhaawacmay qarax argagixisadu ay la beegsadeen ra'iisul wasaaraha ayaa la sheekaystay Maxamed Ibraahim Macallimow oo xaaladiisa ay soo hagaagayso waxa uuna eebe uga bariyay in uu siiyo caafimaad degdeg ah sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay dhaqaatiirta daaweynaysa afhayeenka xukuumadda isagoo uga mahadceliyay sida wanaagsan ee ay ula tacaalayaan xaaladiisa caafimaad xaaladda afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow ayaa hadda ah mid aad uga soo wanaagsananaysa sidii hore wuxuuna iminka kala garan karaa dadka soo booqanaya Maxamed Ibraahim Macallimow afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qarax shalay lagu weeraray gaari uu saarnaa waxaana isku qarxiyay qof isku soo xiray walxaa qaraxa waxaana uu dhaawac ka soo gaaray qaybaha dambe ee jirkiisa qaraxaasi mas'uuliyadiisa al-shabaab ayaa sheegatay asa ahaatee waxa lagu eedeynayaa inay wax ka ogeyd dawladda Imaaraadka Carabta oo dhawaan uu la saaxiibay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble Imaaraadka Carabta oo sanadihii la soo dhaafay aan saaxiib dhow la ahayn dawladda federaalka Soomaaliya ama xiriirkooda uusan wanaagsanayn ayaa toddobaadkii hore waxa uu Rooble u balan qaaday in uu celinayo lacag laga qabtay sanadkii 2018 wixii markaas ka dambeeyay waxa kordhay qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho waxayna dadka falanqeeya siyaasadda ay ku sababeynayaan in Imaaraadka Carabta ay markaas dib u bilowday amni daradii ay ka geysan jirtay magaalada Muqdisho waxaa sidaas cadeeyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yar Cali oo bartiisa Facebook qoraal uu ku soo qoray ku yiri wixii ka dambeeyay markii si aan ka fiirsashada lahayn loo sheegay in dib loo soo nooleeyay saameynta dawladii hore faragelinteeda gudaha loo xadiday waxaa sare u kacay qaraxyada iyo culeysyada amni ee lagu hayo bulshada maamulka gobolka Banaadir ayuu qoraalkiisa ku yiri Cali Yare waxa uu ula jeeday dawladda Imaaraadka Carabta dhinaca kale dawladda Qatar oo xiriir wanaagsan la leh dawladda federaalka Soomaaliya ayaa cambaaraysay qaraxii lala beegsaday afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimow war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa lagu sheegay in Qatar ay si aad ah ugu soo horjeedo weerarada lagu beegsanayo siyaasiyiinta qoraalka ayaa intaas ku daray in dawladda Qatar caafimaad degdeg ah ay u rajeynayso afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ee dhaawaca soo gaaray qaraxa oo dhacay barqanimadii shalay waxa mas'uuliyadiisa sheegtay al-shabaab wararkaasi ayaa ugu waaweynaa Soomaaliya inta ku kulmi doona wararkeena soo socda nabadgelyo